بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. halkan waxaan shir jaraa'id ku qabanaynaa shirkaas jabaa'id oo aan uga cadeynayna bulshada Soomaaliyeed ee dadka caasimadda ku noolba dhacdadii ka dhacday halka saldhigga iridiisa maantay iyadoo aan u nimid halkan aniga taliyaha booliiska oo gudaha ku jirno inaan bulshada la wadaagno shir jaraa'id hore ku qabtay halkan aniga oo cadeynaya bulshada askartii wax geysatay inay xiran yihiin oo la xiray shir jaraa'idna la qabto kadib waxa saldhigga iridiisa xoog ku soo galay ciidan hubaysan oo aan horena noo soo wargelin u soo wargelin saldhigga soo jiiray taasoo sababtay in kadib markii la celin maagan ay xabadu bilaabatay waxaan la yaabanahay oo la yaab nagu ah caasimadan oo amni ka jiro oo dawladnimo ka jirto oo booliis ka jiro in saldhig booliis oo maxaabiis ku xiran yihiin oo qawaarij ku xiran tahay oo maxaabiis dambigiisa ku jiran yihiin oo dad dil ku xiran oo koox fowdo geysta ku xiran yihiin in si sharci darra lagu soo galay ee saldhigga iridiisa xabadu ka bilaabato taas waa ayaan daray ku tahay fahamka dawliga iyo dawladnimada waxaan leenahay cid allaale mas'uuliyadda waxa ka saaran ammaanka inay ilaaliso badqabka inay ilaaliso iyo booliiska iyo saldhigyada iyo amniga guud inay ilaaliso waajib ka saaran qofka hadduu mas'uul yahay iyo hadduu mas'uul yahay waxa laga rabaa hadduu imaanayo inuusan awood isticmaalin ee uu yimaado asaga oo la og yahay laakiin inay noqotay in askar hubaysan oo qoray wata sharci darra la xakameeyay qorihii la xakameeyay ay ku jiraan in saldhiggii booliiska lagula yimaado lana xabadeeyo askartii booliiska qaar ka midna wax la gaarsiiyo taasi waxay ka turjumaysaa fahamka dawlad yari ay dadkaasi gaarsiisan yihiin waxaana kaloo leenahay shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inay ogaadaan in meesha wax ka dhacayna ay tahay saldhigga booliiska xabadaha meesha ku yaalina ay tahay saldhigga booliiska iridiisa oo aad garanaysaan saldhigga booliis waxa lagu talagalay inuu nabad ka shaqeeyo inuu ammaan ka shaqeeyo inuu laba qofood oo isdacweynaysa ay timaado laakiin aysan ahayn sharci darra inay tahay in ciidan ka baxsan ciidankaas booliiska oo saldhigga waardiyana inay awood ku yimaadaan si sharci darra inay ku yimaadaan taasaa sababtay isku dhacaas waxaan sidoo kale ugu digaynaa mar kale waxaan dadkaas uga digaynaa ammaanka caasimadan fawdo lagama ogola qalqalgelin lagama ogola amnigay shacabkaanu haystaan waqti dheer ay amni haysteen waqti dheer ay amni iyo kala dambeyn ay ku nagaadaan haysteen muhiim ma ahan 3 sano oo la soo dhaafay waxaan ka shaqaynaynay inagoo u jeedna in gacmaheena dad ku celiyaan laakiin ma yeelaayo qof laga yeelaya ma jiro xeerkii xakamaynta hubka ee la xakameeyay aniga oo taliyaha booliiska gobolka amniga booliiska gobolka uu sareeya aan beeka am qaadanayn oo gudoomiyaha gobolka uu qaadanayn in beeka am iridaha la soo istaaga saldhigga waa sharci darro wax la aqbalayo ma ahan hadda kadibna lagama aqbali doono waxaan leenahay siyaasadda waa wax kale qofku siyaasadda waa ka hadli karaa siyaasadda waa aadi karaa madaxweynaha siyaasadda iyo dhaliisha iyo aragtida waa lili karaa laakiin ammaanka bulshadan iyo caasimadan inay fawdo gasho inaan la horseedin saldhig booliis in la yimaado oo xoog lagu yimaado waxay ka turjumaysaa fawdo waxay ka turjumaysaa sharci darro waxay ka turjumaysaa in xabad lagu soo bilaabo waxay ka turjumaysaa nidaam aan waafaqsanayn sharciga mar kale iyo markaan leenahay hay'adaha ammaankana waxaan leenahay waajibka qaranka ee saaran ee ah inaad amniga shacabka sugtaan adinka oo xil saaran waxaana la rabaa inuusan inta iyo meel lamidaba soo gaarin qof wataa dhashiike qof wataa BKM wuxuu doonaa ahaado oon sharciyad haysanin sidaa daraadeed mar kale ku celinaynaa annaga oo booliisa ayaa taliyaha booliiska Soomaaliyeed taliyaha nabad sugidda ma wataan qoran shirka ma garanayo sabab wiilalana garanay inta u soo qaataan oo istaaf u soo qaataan ila yimaadaan ma garanayn waxay ahaayeen la garanayn cidda wadin lama garanayn dhashiike iyo BKM socda soo galay saldhigii markaas kadib oo xabadu bilaabatay kadib la ogaaday dadka yimid inay yihiin dad siyaasiyiin oo aragti kala lahaa iyo ujeedooyin kale mar kale waxaan faraynaa shacabka iyo bulshada dadka amniga aadaysataan gacmihiina ku duminaya adinka lan ka rabaa in aad iska qabataan amni iyo kala dambeyn iyo la dagaalanka qawaarijan u soo jeedna dalkan qawaarijan rabnaa in la dirno gacan kula dirno inaan iska dhicino dadkan iyo shacabkan iyo dalkan Soomaaliyeed muddo 35 sano ka badan ay ku soo jireen xabad in wax lagu xalliyo muddo 35 sano ka badan ay ku soo jireen caasimadan inay fawdo ahaato ma maleeyeen maanta runtii in saldhig booliis dad intaas la eego ay fawdo u yimaadaan iridiisa ee saldhigga iridiisa iska tijoogto lagu xabadeeyo taas waa arrin sharci darra waa arrin sharci waafaqsan hadda kadibna ayadaas mid lamid waxaan rajaynaynaa inaysan dhicin oo sareynta sharciga iyo dawladnimadu inay shaqeyn doonto waa maasantiin falal amn